Jisoo, Jenny, Lisa and Rose, Blackpink. Hello, ladies. ugu dambayn wakaaladda iyo sumada caanka ee WG Entertainment waxay soo gaadhay bishii August oo ah xilligii laga filayay inay heshiis cusub la gaadho xubnaha iyo gabdhaha kooxdaasi Blackpink balse haddana sidaasi ay tahay waxaa jira xogo tilmaamaya in xaaladdu waqtigan sahlanayn maadaama mid ka mid ah xubnaha kooxda Blackpink ay ka warwareegayso ama baquursanayso in ay ka qayb qaadatay heshiiskaasi iyo kontraagaasi shirkadda walow wakaaladdu ay isku dayday muddo badan sida ay ku kasban lahayd 4 xubnood oo isku duuban haddana waxaa la leeyahay midani ma aha mid sahlan Babbays oo ah mid ka mid ah warbaahinta loogu aaminitaanka badan yahay dhanka K-pop ayaa soo saartay dhawaan qoraal kooban kaas oo uga hadlaysa arrimaha Blackpink iyo heshiiska u dhexeeya wakaaladda iyo shirkadda caanka ee WG Entertainment qoraalkaas oo kooban ayaa gabi ahaanba oo dhignaa sidan sumada iyo wakaaladda WG Entertainment waxay fogaska iyo diiradda saaraysaa waqtigan kaliya sida ay heshiis ula geli lahayd mar kale kooxda gabdhaha ee Blackpink haddaba qoraalka WG ayaa muujinaya gabi ahaanba inaanay haysan wakaaladani ama shirkadani tiim waqtigan u dhigma kooxdaasi Blackpink taasoo la macnaa waayitaanka gabdhahan inuu ku noqon karo naafo iyo dhaawacaanay ka soo kabsanin WG Entertainment. According to reports, YG has made the renewal of Blackpink's contract their priority and is focused. warar hoose ayaa tilmaamaya Blackpink Lisa inay tahay xubinta ka warwareegaysa ama baquursanaysa inay saxeexday heshiis cusub iyo kontraag ay mar kale la gasho wakaaladda WG taasoo loo fahmay maadaama ay haysato dhaqaale aad u badan si la mid ah ka hesho shirkada ay ka tahay ambassadorska oo marka la barbar dhigo 10 laak ka badanaysa gabi ahaanba inta ay siiso shirkadaasi WG waa run inay sumcad magac iyo taageero caanimo ballaaran intaba ka heshay WG Entertainment iyo ka mid ahaanshaha Blackpink haddana sidaasoo ay tahay waqtigan waxay muujinaysaa awood ka ballaaran midii bilowgii 2016 markaas oo ay ahayd keliya xataa qof aan la aqoonin magaceeda saddexda xubnood ee kale ayaa la tilmaamaya inay soo dhaweeyeen heshiis cusboonaysiinta WG balse ilaa hadda Lisa waa qofka qura ee u muuqda inaanay gabi ahaanba danaynaynin kontraagkaasi. Information has left fans questioning the motives behind the apparent secrecy, leading to suspicion. haddana sidaasi ay tahay waxaa jira fans badan oo midan ka dhiibtay ra'yigooda iyagoo qiyaasiya meesha ay ka jiraan caqabaduhu sida uu noqon karo xalku waxayna leeyihiin keliya 4 sabab ayaa keeni kara inay kala tagaan WG Entertainment iyo Blackpink qodobka koowaad ayaa cadaadisyada shirkaddu ay ku hayso inta badan tiimkaasi waxaa jira shuruudo ku xidhan xubnaha kooxda oo ay la gashay shirkaddu waxaana ka mid ah inay kor u qaadaan keliya fankooda balse ay yareeyaan waxyaalaha kale ee keenaya hadalhaynta sida hadalhaynta arrimaha xidhiidhka oo kaba saameyn badan bandhigyadooda sidii sheekadii Feesayaanka iyo Blackpink Jenny qodobka labaad lacagaha ay qaataan shirkadaha ee ambassadorka ka yihiin oo iyaguna caqabad ku noqday ku qanacsanaanta waxa ay siinayso waqtigani WG Entertainment maadaama oo xubnaha qaar lacagaha ay ka helaan WG ayba ka badan tahay kuwa ay ka helaan shirkadaha kale ay waqtigani la shaqeeyaan qodobka saddexaad WG oo weli u dhaqmaysa sidii hore ee 2016 waxaa la tilmaamayaa wakaaladdu inay lowsan tahay casrigan la joogo iyo lacagaha waalida ay heli karaan fanaan kasta oo ka mid ah kooxdaasi waxaanay ku xidhan tahay ayay leedahay in shirkaddu soo bandhigto qandaraas cusub misana ka qiimo sarreeya wax badan kii ay hore ula gashay guna joogta caawimo fara badan ay u muujiso tiimka iyo sidoo kale daryeel aan caadi ahayn oo ay siisa xubnaha tiimka si la mid ah oo qodobada aan kor ku soo sheegnay in ay hoos u fiiriso qodobka u dambeeya WG waxay aaminsan tahay inay dhisi karto koox kale waxayna haysataa ayay leeyihiin hadda Baby Monster
walow ay cusub yihiin oo aynay gaadhin heerka Blackpink iyo mid u dhow toonna haddana waxay ka fakaraysaa ayay leeyihiin waqtigan maadaama daadoodu sii weynaanayso Blackpink si la mid ah danayntooda aanay badnayn oo ay heer sare gaadheen waqtigan malaha waxaaba uga fiicnaan lahayd ayay leeyihiin inay dhisato tim cusub oo ay waqti geliso kadibna ay gaadhsiisa halkii ay gaadhsiisay hadda Blackpink waana tiimka kaliya hadda ay soo kicin karto Baby Monster. Artists have disagreements. Contracts often get extended with the same terms until they finish, and the announcement comes later. Bishu waxay maraysaa maanta 13 waxaana jira warar sheegaya in loo gudbiyay inay saxeexaan heshiis cusub inta lagu jiro bishani August. Haddana si kastoo ay tahay wax kasta waxaan bay ku xidhan yihiin ay aqbasho Blackpink, Lisa iyo xubnaha kale ee kooxdaasi si uu gabahanba heshiiskani u noqdo mid waara misana muddo dheer jira. Blackpink Lisa waxay ku qaadanaysay maalmihii u dambeeyay oo waqtigeeda dalxiisyo ay ku tagayso wadamo kala duwan halka Jisoo la finayo waqtigan inay jacayl la jilayso wiilkii dheeraa ee actorkii dhawaan isku soo sawirayay iyo ninka lagu magacaabo Abuhan. Jenny iyo Rosanna maaha qaar ka fog. haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa adigu sheekadan ma odhan karnaa Weiji haddii ay rabto inay heshiis cusub la gaadho Blackpink waa inay la timaadaa kontraag qaali ah oo ay ku helayaan lacago badan maadaama aanay waqtigani baahi badan u qabin iyaguna way u fiican tahay inay aqbalaan maadaama jiritaankooda iyo caanimadoodu tahay waxa ugu muhiimsan hoos ugu dhaaf fikirkaaga sidaad u aragtay sheekadeena maanta si la mid ah muuqaalka jeceshahay inaan ku xigsiino midkan like videoga subscribe channelka iyo YouTube-keena Baldahab TV lana wadaag saaxiibadaada kale haddii ay macquul tahay mahad sanid